رمضان قد أهله بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. أحاديث رمضان وبرنامج aynu ku soo qaadan doono qaar ka mid ah axaadiidta nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasalama ee uu uga hadlay soonka ama ramadaanta. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه. waxaa laga wariyey abaa hurayrata alla raalliha ka ahaadee inuu yidhi wuxuu yidhi rasuulkii alleh sala allahu calayhi wasalam qofkii ilaawa isagoo sooman oo wax cunaa ama cabbaa ha dhammaystirto soonkiisa maxaa yeelay allah quudiyey oo waraabiyey. bukhaari iyo muslim ayaa labaduba wariyey. رمضان قد أهله بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين.